معالٍ 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 22 November waa maalinta loo asteeyay xuska iyo dhiirigelinta macalinka Soomaaliyeed ee madaalaha ah 22 bishii November 1974 ayaa la aqoonsaday maalinta macalinka Soomaaliyeed waxayna shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda uu macalinka u leeyahay bulshada 22 November sanad walba waa maalin u gooniya xuska macallimiinta Soomaaliyeed waxaana maanta oo kala barisamaadkii dalka laga xusi jiray munaasabado waaweyn oo lagu weyneenayo maalinka macalinka Soomaaliyeed oo aan sidii hore maanta qiimo saa'id u lahayn sababtuna ay tahay burburkii iyo foodadii dalkeena ka dhacay sida diinteena islaamku sheegtay macalinku waa waalidka labaad ee ardayga taas oo macnaheedu tahay in uu qadarin sharfid iyo naxariis badan ugu leeyahay macalinka waxna baray macalinku waa barbaariyaha iyo ababiyaha da'yarta iyo jiilalka cusub ee bulshooyinka macalinku waa hirgeliyaha iyo horumaryaha aqoonta waayo-aragnimada iyo xadaaradda bulshada astaamaha macalinka wanaagsan waxaa ka mid ah waa mid ujeedkiisu cad yahay leh qorshe wanaagsan u dhagan nugul ardadiisa kobciya aqoonta iyo wacyiga ardadiisa aan abaal ka sugin ardadiisa iyo ehelkoodaba dhiirigeliya ardayda waana hogaamiye bulsho oo waxtar leh macalinku waa ugu cilmi ah oo bulshada ka haqabtira aqoon la'aanta iyo jahliga macalinka oo ah warshada soo saarta haldoorka bulshada waxa wax laga xumaadaa inuu maanta ka mid yahay dadka ugu daryeelka iyo mushaarka yar baraaruq qaran waxay bulshada Soomaaliyeed hay'adaha dawladda kuwa caalamiga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha waxbarashada ku dhiirigelinaysa in kor loo qaado daryeelka iyo xuquuqda macallimiinta Soomaaliyeed معالٍ 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 أنا قيرية وقادة تديو